halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Wanow ee maamulka magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida sidaad arkaysaan waxa si toos ah uga socota dhirbeerista oo ah mid guud ahaan dalka iyo deegaanka Basaaka 6 subaxnimo ka bilaabatay haddaba sidaad arkaysaan mas'uuliyiinta sare ee xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida qaybaha kala duwan ee maamulka shacabka qaybihiisa kala duwan maamulka dugsiga ardayda iyo waalidiinta ayaa waxay subaxii hore ee saaka goobtan u yimaadeen si ay u sameeyaan dhirbeerista oo guud ahaan laga bilaabay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba dalka Itoobiya oo dhan dhirbeeristan ayaa waxay tahay mid ka socota guud ahaan gobolada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka dawlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale guud ahaan dalkaba haddaba halkani waa dugsiga Wanow ee maamulka magaalada Jigjiga oo ay si toos ah uga socoto dhirbeeristu mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada ayaa dugsiyo fara badan oo ku yaala maamulka magaalada Jigjiga saaka ka sameeyay dhirbeeris dugsiganina wuxuu ka mid yahay dugsiyada ay sida tooska xilli xaadirkan uga socoto dhirbeeristu saaka farxad gooni ah ayay noo tahay maadaama aanu shantii iyo barkii habeenimo halkan kuwa bariisanay isla markaana aan ka qayb qaadanayno awaajka guud ee dalka taasoo ah dhirbeeristii oo ay ka qayb qaateen bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo shaqaalaha xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida taas oo aan ku guuleysanay markaa ka qaybgalka bulshada iyo shaqaaluhuba aad ayuu u fiicnaa dadka waxaan ka dareemaynaa ama aan ka garanaynaa in ay yihiin dad muwaadiniina oo u baahan mar walba in sidaas oo kale wixii horumarka ka ah loogu dhiirigeliyo laguna abaabulo dadka deegaanka Soomaalida runtii saaka baa u bariyay waagaas oo ah waa ifaya taas oo ay kaga qayb qaadanayaan dhirbeerista dhirta marka la beero waa nolosha bini'aadamka midda ugu horeysa farxad gooni ah noo tahay runtii saaka waan la soo koobi karin waana ku qanacsanahay waqtiga aanu saaka halka kuwa bariisanay 5 iyo barkii subaxnimo ahayd saaka waxaan joognaa dugsiga Wanow oo qayb ka dhammaan dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga ku yaala iyo kulliyadda waxbarashada Dr. Cabdimajiid oo dhammaantood laga fulinayo qorshaha dhirbeerista deegaanka si guud uga socota isla markaana bahda waxbarashadu meel walba ay joogto waxay ka tahay qayb ama waa lagu beerayaa ama iyagu way beerayaan marka dugsi ahaan waa laga qayb qaadanaya oo dhulku goobaha waxbarashadu way ka qayb qaadanaysaa oo dhirbeerista laga beeraya bahda waxbarashaduna waxay qayb ka yihiin dadka wax beeraya marka si guud waxaan filaynaa inay wax badan ka tari doonto ama wax badan ku soo kordhin doonto waxaan ogsoonahay deegaankeena waxa soo noqnoqda abaaraha xalka waara abaaraha lagu baajin karayo ama wax laga qaban karayo waxa qayb ka in aan dhir badan beero dhirtaas markii la beero waxay keeni doontaa dadkan hooyiba u noqon doontaa way dugsanayaan cadaay koos galayaan isla markaana waxay keeni doontaa qayb ka noqon doontaa roobabka baaxadda leh ee ka dii doona deegaankeena marka aad faa'iido badan bay u leedahay bahdeena ama shacabkeena ama deegaankeena bahda waxbarashaduna qayb ay ka tahay si guud uga qayb qaadanaysa dardaarankaygu waxay tahay bahda waxbarashadu si guud iyo isku duuban waxaan kula dardaarmay inay ka qayb qaataan joogteeyaan dhirbeerista oo maalin walba iyo mar walba iyo fursad walba ay helaan ay ku beeraan goobaha waxbarashada si guud maadaama arday badan iyo dad badan ay ka qayb qaadanayaan ay tagaan dugsiyada isla markaana ay u baahan yihiin goobo ay ku nastaan ay cadceedda ka harsadaan ay u baahan yihiin marka maalin walba iyo fursad walba ay helaan inay ka qayb qaataan ma kula dardaarmay dhirta naloo keenay waa 3550 geed waxaanu ku beernay dugsiga hoose dhexe Wanow waxay faa'iido noo leedahay quruxda dugsiga iyo bilicdiisa iyo cagaarinta deegaanka way ka qayb qaadanaysaa 1 milyan ee maamulka magaalada Jigjiga uu qaatay waxaanu kaga qayb qaadanaynaa 3550 geed inaan ku beerno dugsiga ilaalinteeduna waa waajibaad annagana saaran wixii caawimaada iyo taakula dhinaca biyaha oo kale xafiiska waxbarashada iyo biyaha ayaa qaatay inay naga caawiyaan intaas annaguna ilaalinteeda iyo daryeelkeeda wixii ilaahay nala garab qabto waan ka xoog yeelanaa xoog waan saaraynaa maxay isleedahay way ka tiri kartaa dugsigu wuxuu weeyaan bilaa dhir buaba annaga bilaa dhir buu dugsigu naga faa'iido weyn ugu qabnaa dugsigu wax dhir ama lahayn saacadahan oo kale ama waqtiyada xagaaga uu bilaabmay galaasida lagu jiro waxbarashada siiga galaysa ardayda waalidka soo socda board baa wada kacay carrad shay ah liisa meesha dhaxtaala carradaas waxay saameynaysaa diriiska wasakhayn
buugta ardayda wasakhayn ayay ku wada bilaamaysa maanta laakiin markay dhirtaasi ka hirgasho beeridaasi waxaa imanaysa in arday nadiif ay ka baxaan arday nadiifina soo galaan dugsiga jeexjeexyadii ama waraarada sidaasoo kale ee uu jeexjeexayay biyuhu inay naga qabtaan oo ay u noqdaan arqabatin waxaa meesha aan ku joognaa oo ku beeraynaa dhammaan barayaashii dugsiga oo wada jooga oo xidhan dharkoogii ay barashada ku bixinayeen annaguna markaa waxaanu rajaynaynaa in dhirtaas noo kacdo annagu waxaan soo kalaarnay saaka 6dii subaxnimaan soo baxnay shacabka iyaga soo abaabulay waxaan beeraynay dhirbeeristaas oo ku haboon meel ay ku haboon tahay aan ka beernay marka taintaas ay ahayd saakana waan beernay waana tan waan dhex joognaa kulley ahmiyadda noo leedahayna waxa weeye maanta manaafacaad ilmihiisa dambe ayay anfacaysaa dhirtani waayo qurux bilic intaba way soo kordhinaysaa kulley qorshaha iyagu yahay awoodeeda wixii macnaha ka aboodno inaan annagu ilaashano annaga danteeda tahay oo qof walba oo maamula way qusaysaa oo dhirbeeristan waxay u baahan tahay biyo badan bay u baahan tahay in la waraabiyo iminka biyahana kulley waqti roobaadkiina ugu yar joogsaday waxaga kulley waxaan filaynaa biyana in loo keeno waana ilaalinaynaa haddii la yidhaahdo